kulanti wanaagsan daawadayaal halkan waa warbaahinta xogta wararka qodobada aan idiin haynana waxaa kamid ah shirkii magaalada Garowe oo qodobada qaar inta shalay la isku waafaqay hadana lagu kala booday maxaa ka jira in hal sano oo dheeraada inta loo ogolaaday madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Xaaf misana dawladda ay sheelaraha uga kacday shirkii oo socda ayuu ka kacay saacadihii dambe yaa ka dambeeyay amarkii lagu hor istaagay saacada ka hor madaxweyne Farmaajo kulankii uu kaga qaybgeli lahaa magaalada Garowe xaalka siyaasadeed ee Somaliland iyo qorshe lama filaan ah oo dawladda Masar ay ka damacsan tahay deegaanada Somaliland Sacuudiga oo gadaal ka tooganaya dawladda isku tagga Imaaraadka Carabta loolanka Carabta oo ceel dheer ku siiridaya hanka Soomaalidu ay lahayd Yusuf Garaad Cumar wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya oo bahdil ku sameeyay warbaahinta dawladda qaarkeed iyo sida ay afduubka ugu noqdeen iclaamka xorta ah qodobada dibaddana waxaan idiin haynaa hal arday ayaa dhintay 7 kalena waa ay dhaawacmeen markii toogasho ay ka dhacday gobolka Colorado ee dalka Mareykanka iyo malaayiin qof oo maanta Arbacaha u dareeray doorasho waddanka South Africa si ay madaxweyne cusub u soo doortaan intaas waxay ahaayeen qodobada ugu waaweyn wararka warbaahinta xogta wararka waa 8 bisha shanaad ee May 2019 qodobada ararta aad maqasheen iyaga oo faahfaahsan ku soo dhawaada qodob xasaasi ah ayaana ku jira aan ku bilowno shalay magaalada Garowe waxa doornimadii la isku afgartay oo qodobo 5 ah laga soo saaray shirkan inuu soo xirman lagu heshiiyay kulankii u dhaxeeyay madaxda dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada haddana waxay noqotay in lagu kala boodo oo haddana khilaaf hor leh qodobada qaar iyo sida loo wajahayo saxiixooda ay noqotay siyaasadda dalka ayaa waxa hadda ay u foorartaa oo ay ka gudbi weysan tahay tiinkii ay talaashay ee ahaa federaalka kaas oo ku aas-aasmay nidaamka maamul goboleedyada hadda shaqeeya ra'iisul wasaaraha dalka Xasan Cali Qeerre ayaa dhowr munaasabadood isagoo hadal ka jeediyay waxa uu shaaca ka dhigay inaysan ogolaan doonin sida warka uu yiri in loo meeriyo oo ay farta ugu yeeraan maamul goboleedyada ka dhabaynta hadalkaasi waxa ay suurtagali weysay markii bishan bilowgeedii deegaanada Puntland lagu casuumay madaxda dawladda federaalka ugu sarreysa sida madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Puntland ayaana gogashaas fidisay taasi yeelkadeede tani waxa ay qayb ka tahay baa la yiri isbabariyaaca dawladda Soomaaliya iyo siyaasadda aan xadeysnayn ee dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada ku wada dhaqmayaan shirka magaalada Garowe waxa uu galay maalintiisii afraad shalay mar ayaa lagu heshiiyay in uu shirka soo xirmo balse buuq siyaasadeed uu galay waxa ay keentay in dib loogu noqdo taas oo xitaa markii dambe lagu kala dareeray qadiyadda ugu weyn ee shirka hareysay waa in Galmudug hogaamiyaheeda Axmed Ducaale Xaaf uu helo waqti kordhin maadaama laga ambaqaadayo heshiiskii Jabuuti lagu mudeeyay ee Galmudug iyo waliba ahlus sunna wal jamaa ay ku heshiiyeen la iskuna biiriyay macada sida ay wax ku dambeyn doonaan balse shalay ayaan la wadaagnay dadka ku xiran bogan xogta wararka 5 qodob oo la isku waafaqay taas oo la leeyahay waa la soo gudbin doonaa haddii isbedel kale uusan iman shirkan ay u badan tahay in la soo xiro warar kale ayaa sheegaya in buuqaas uu kordhay lagana cabsi qabo in xaaladdu ay meel sare gaadho shirkana lagu kala dareero warar isla dhexmariyay ayaa sheegayay in warqad ka soo baxday maamulka Puntland lagu hor istaagay arrintii ku saabsanayd kulankii habeen hore madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu kaga qaybgeli lahaa magaalada Garowe ee la hor istaagay inkastoo xarunta cilmi baarista ee Center for Policy Alternatives ay beeniyeen in is-hortaag lagu sameeyay kulankaas ayaa haddana waxa ay ku micneeyeen in kulanka uu ahaa mid iskood iyaga ay u baajiyeen qoraal ay soo dhigeen bartooda Facebook ayaana sidaas ay ku shaaciyeen waxa la helay qoraalkii lagu joojiyay shirkaas ee maamulka Puntland ka soo baxday waxaana warqadan ay ahayd mid fariin loogu dirayay qabanqaabiyaasha kulanka laguna amray in aysan qaban karin isku imaatin
kulanka waxaa lagu qaban lahaa hoteelka Grand ee magaalada Garowe loogana hadli lahaa hanaanka doorashooyinka Soomaaliya oo dadwadaag laga gelin lahaa iyadoo la casuumay madaxweyne Farmaajo sida la sheegay xarunta Center for Policy Alternatives ayaana muxaadaradaas soo qabanqaabisay waxa lagu yiri qoraalka waxaa taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Nugaal lagu wargelinayaa in la mamnuucay oo shir lagu qaban karin hoteelada hoolasha jaamacadaha iyo dhammaan xarumaha lagu shiro oo dhan oo aan lagu qaban karin wax shir ah oo uusan ka warhayn maamulka Nugaal iyo dhammaan laamaha amniga gobolka Nugaal haddaba waxaa la farayaa maamulayaasha hoteelada mas'uuliyiinta xarumaha jaamacadaha hoolasha lagu shiri karo ee gobolka Nugaal inay ka reeban tahay baa la yiri shir uusan la socon maamulka gobolka wax fasax ah ee ogolaansho dawladeed ah iyadoo aan la haysan waxay ku saxiixan Cali Salaad Deeriye Faarax gudoomiye ku-xigeenka gobolka Nugaal ahna kusimaha gudoomiyaha gobolkaasi waa hagaag waxaad nagala socotaan warbaahinta xogta wararka taliska ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa waxay sheegeen in gacanta lagu soo dhigay askari maanta dil ka geystay degmada Hodan ee magaalada Muqdisho mooto darawal bajaajle ka ahaa ayaa la sheegay in isgoyska Tarabuunka ee magaalada Muqdisho lagu dilay barqanimadii maanta taliye ku-xigeenka ciidamada booliiska Soomaaliya General Sakiye Xuseen Axmed ayaa sheegtay in ciidamada amniga ay ku guuleysteen soo qabashada askariga dilka geystay wargelin ciidamada booliiska ayaa soo xiray baa la yiri qoraal la soo saaray askari booliis ah oo maanta darawal mooto bajaajle ah ku dilay qof kalena ku dhaawacay Tarabuunka waxaana la marsiin doonaa sharciga marnaba ogolaan mayno in sharciga askarteena dib u geystaan shacabka ayay tiri taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed waa markii ugu horeysay oo gacan ku dhigile dawladdu ay sheegtay bajaajle inta dila oo baxsada gacanta lagu soo dhigo talaabadan ayaana waxa aad u soo dhaweeyay wadayaasha mootooyinka bajaajka oo dhibaato qaati billahi ku qabay ciidamada dilalka u geysta wasiirkii hore ee warfaafinta Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle ayaa waxa uu maanta ka hadlay xaflad xilka uu ku wareejinayay kadib toddobaadkii hore uu xilkan iska casilay iyadoo xil wareejintaas uu ka qayb galay ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Guuleed Qadar wasiir Geelle ayaa sanad wax yar ka dhiman waxa uu soo hayay xilkan waxaana ugu dambeyntii uu ku wareejiyay Maxamed Cabdi Xayir Maareey oo loo magacaabay wasiirka cusub ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Daahir Geelle ayaa hadal sarbeeb ahaa meesha ka sheegay isagoona yiri maanta kadib in wasiirka weyn uu rajeynayo oo hankiisa sare ay tahay mid xil wasiirnimo doonaya haddii uu siyaasadda mar kale ku soo laabanayo warar ayaa sheegaya in xisbiga himilo qaran uu ku biiri doono Daahir Maxamuud Geelle maadaama ay si weyn isugu dhow yihiin madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed wasiirka cusub ee warfaafinta Yuusuf Garaad Cumar wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa eedeyn dusha kaga tuuray warbaahinta qaranka qaarkood habka loo maamulo Yuusuf Garaad waxa uu sheegay in warbaahinta qaranka sida Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya telefishinka qaranka iyo wakaaladda wararka ee qaranka Sona ay madaxdeedu ay u tababaran yihiin sidii afqabasho ay ugu sameyn lahaayeen warbaahinta kale ee xorta ah in loo dabro wariyeyaasha iyo warbaahinta madaxa bannaan waa mid aan wanaagsanayn Yuusuf Garaad ayaa tusaale u soo qaatay in warbaahinta qaranka ay baahisay xilka qaadistii maareeyaha golaha guurtida halka aysan baahin iscasilaadii wasiirka warfaafinta oo isagu warbaahinta ka sheegay isagoona ku eedeeyay warbaahinta qaranka inay isku dayday in warkaas ka qariso bulshada Yuusuf Garaad ayaa waxa uu ku tilmaamay talaabadaas ay warbaahinta qaranka qaaday in ay tahay nidaamkii ay warbaahinta qaranka ay ku socotay xilligii militariga uu dalka ka talinayay wasiirkii hore ee arrimaha qaarajiga Soomaaliya ayaa qoraal arrimahaas uu kaga hadlay waxa uu ku soo qoray bartiisa Facebook isagoona nuxurka guud ay ahayd casrigan war jira lama qarin karo laakiin waxa kaliya oo ay madaxdu sameyn kartaa waa in ay amar ku dhiibaan in aan wararka aan dhagahooda jeclaysanin laga sii deynin idaacadda taas oo natiijadeeda noqonayso in warbaahinta qaranka loo dabro warbaahinta kale ee la tartamaysa boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa waxay doonaysaa sidii galaangal ay ugu yeelan lahayd wadanka Soomaaliya xilli la leeyahay dalalka geeska Afrika ay ku biirtay ee doonaya in beesha caalamka tartan ay ugu galaan sidii ay Somaliland iyo Soomaaliya isugu keeni lahaayeen
martigelinta wadahadallada ugu horreeya ee dhex maraya dowladda madaxweyne farmaajo hogaamiye xukuumadda hargeysa ka shaqaysa ee madaxweyne muuse biixi ayaana waxay yihiin mid ay sacuudiga u garwaaqsanayso iyadana ay qabanayso. toddobaadkii hore ayay ahayd markii uu safiirka sacuudiga u fadhiya soomaaliya maxamed cabdilqani khayaad uu socdaal ku tegey deegaanada somalilan, kaas uu kulamo la yeeshay madaxweynaha maamulkaasi iyo xukuumaddiisa. madaxweyne biixi ayaa 2 bishan May waxa uu xafiiskiisa ku qaabilay safiirka sacuudiga ee soomaaliya u fadhiya maxamed cabdilqani, waxaana ay ka wada hadleen arrimo dhowra. dowladda soomaaliya waxay shaaca ka qaaday in dowladda sacuudigu ay doonayso dalalka doonaya in ay dhexdhexaadiyaan Soomaaliya iyo Somaliland ay qayb ka tahay, taasoo martigelinta wadahadaladana Hargeysa iyo Muqdisho ay ku doonayso Riyaad inay gogol ugu fidiso. wararka waxay sheegayaan ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Guuleed Qadar in uu garwadeen u noqonayo hoggaanka dowladda maadaama deegaanada Somaliland uu isaga ka soo jeedo. ilaa hadda wax waqti ah looma qaban goorta ay dib u bilaabanayaan wadahadallada labada dhinac ee Somaliland iyo Soomaaliya, inkastoo xukuumadda Biixi ay dhowr jeer sheegto in dowladda Soomaaliya haddii ay la hadlayaan sida waddan oo kale ay ula fariisanayaan. waa hagaaga waxaad nagala socotaan warbaahinta xogta wararka. gabagabada ayaan isla soo gaarnay muuqaal baahiyaha xogta wararka ayaad naga daawanaysaane, bal markana iskuulka ayaa waxa la sheegay in ay ka socotay munaasabadda 20 guurada sida la sheegay ee iskuulka Columbine High School la yiraahdo. talaadii warbaahinta dalka Mareykanka ayaa baahiyay in weerarkaas ilaa hadda aan loogayn cidda ka dambeysay, laakiin in rasaas ooda lagaga qaaday ayaa la sheegay iskuulka Highlands Ranch, ayaana la sheegay boqolaal iskuul in ay ku sugnaa ciyaal iskuula in ay goobta joogeen. ma garanayno 2 qof ayaa ay ahaayeen oo socday, rasaas ay ku fureen ayuu u sheegay qof ka mid ah dadka meesha joogay oo Shariif Tony la yiraahdo. guud ahaan intaasan ku soo gabagabaynaynaa wararka warbaahinta xogta wararka. inta aan wararkan oo kale isku maqlayno iskuna arki doonno nabadino.